uma baahni jaamacad si aad wax u barato. sanad ka hor ayay ahayd markii Elon Musk uu hadal jeedin dheer ka sameeyay mowduuca goobaha waxbarashada gaar ahaan jaamacadaha. waxa uu arkayay inay yihiin goobo qofka aqligiisa lagu liido oo qofka la baro waajibaad shaqo oo la doonayo inuu isagu sameeyo. inkastoo isagu uu dhameystay jaamacad, haddana jaamacadaha waxa uu arkaa meel dadka lagu mashquuliyo oo lagu madadaaliyo. Elon waxa uu cadeeyay in shaqaalaha shirkadda Tesla Motors aan lagu qaadan doonin shahaadooyin uu qofku sito ee lagu qaadan doono qof kasta waxa uu yaqaan iyo kartidiisa. shirkadaha Google, IBM iyo Apple ayaa ka mid ah shirkadaha shaqooyinka laga codsan karo shahaado la'aan. waliba sanadihii dambe ayay soo kordhiyeen hab shaqaalaysiinta noocan ah. shirkadahan waxa ay fahmeen in muhiimadu ay tahay waxa uu qofku qaban karo, xirfadda uu leeyahay, aragtida uu ku soo biirin karo shirkadda iyo wixii la mid ah. sidaas awgeed maba jirto sabab qofka xujo looga dhigo inuu haysto shahaado. shirkadaha horumarka sameeyay ee saameynta ku leh dunida waxa ay garteen in jaamacadaha shahaadooyinka laga sito aan waxba laga soo baran, sidoo kalena in ardayda shahaadooyinka haysto ay caddayn u tahay in koorsooyin ay soo qaateen balse aysan caddayn u ahayn in uu yahay qof wax bartay. sidaas awgeed baahi uma qabayo qofku in shaqooyinka uu ku codsado shahaado. Laszlo Bock oo ahaa madaxii hore ee shirkadda Google mar uu warbixin siinayay wargeyska New York Times waxa uu yiri, marka aad aragto dad iskuul ama jaamacad aan aadin haddana la jaan qaadayo dunida, dhab ahaantii dadkaas waa dad aan caadi ahayn. waa inaan raadinaa dadkaas si walba oo aan ku heli karno. Laszlo waxa uu cadeynayaa in boqolaal aan iskuul ama jaamacad aadin weligood oo waxtar leh dunidan ay ka buuxaan. sidaas awgeedna loo baahan yahay in dadkaas la raadiyo oo lagu dheefsado. sanadkii 2019 ayay ahayd markii Tim Cook oo ahaa madaxii shirkadda Apple uu ka soo yeeray in sanadkii ugu dambeeyay ee shaqaalaha shirkaddu ay qaadatay ama ay shaqaalaysiisay kala bar aysan haysan shahaado 4 sano oo jaamacad ah. balse u fiirso, dunidu waxa ay baadigoob ugu jiraan in ay raadiyaan dad aan haysan shahaado si looga faa'iideysto. annagana haddii aan Soomaalinahay, qof walba oo aan shahaado sidan waxaan u haysanaa qof aan waxba tarayn oo jaahil ah ama laga roono ah oo aan shirkadaha laga shaqaalaysiin karin. maadaama xaqiiqooyin badan ay soo ifbaxeen, sidoo kalena jaamacaduhu aysan ka sarreyn jaamacadaha dunida in ay ka liitaan mooyaane, ayaa waxaa loo baahan yahay inaan annaguna fahanno in shahaadooyinka jaamacadaha Soomaaliya aysan caddayn u ahayn in qof walba uu yahay qof wax bartay. waana in qof walba waxa uu yaqaan iyo kartidiisa lagu tixgeliyo, qofkana aan caqabad looga dhigin shahaado aan damaanad qaadi karin kartida qofka. waana lama huraan in aan waaqiciga la noolaano oo aan dhaqamada duuga ah kuwada liita aan bedelno.